madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta khudbadiisa dastuuriga ahayd u jeediyay fadhi wada jir ah oo isugu yimaadeen xildhibaanada labada gole baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada. madaxweynaha oo ay khudbadiisani ay socotay muddo saacad ka badan waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, adeegga bulshada, nabadgelyada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. madaxweynaha oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka waxa uu markii ugu horeysay u shaaciyay in uu furi doono isla markaana uu soo horumarin doono furitaanka ururada siyaasiga si xal loogu helo khilaafka doorashooyinka ee dalka ka taagan 3 sano ee ugu dambeysay. sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa waxa uu khudbadiisa kaga hadlay kulankii uu magaalada Addis Ababa kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweyne Farmaajo iyo waliba raaligelintii uu madaxweynaha Soomaaliya dhawaan u soo diray shacabka Soomaaliland taas oo madaxweyne Biixi soo dhaweeyay. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhanka kale arin aan sinaba u suurtagelin uu ku sheegay wararka sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo wada socda ay wada imanayaan magaalada Hargeysa. isla markaana waxa uu madaxweynuhu dawladda Farmaajo uu ku eeday in ay tahay dawladdii ugu cadowsireed ee cadaadiskii ugu xumaa saartay Soomaaliland. madaxweynaha oo khudbadiisa kaga hadlay arrimahaasi waxa daladiisii kamid ahaa doorashooyinka laba sano waxa naga dhabaadeen muran madhalaysa oo ah hal la bedelo hal kala diro commissionka iyo sharci loo kala diro lama hayo waa commissionkii hore waqtigooda waa dhamaaday kuwa cusub aynu magacawnay kuwa cusub waxay soo mareen jaranjaradii sharci ciddii uu xeerku siinay soo xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin busaaro uu sii daayay baarlamaanka sii daayay maxkamadii baa dhaarisay haddana muranka ay ugu soo noqday kuwan hala kala diro yaa sharci loo kala diro lama hayo meel hala kala diro sharci lama waa murankii waa kii labadii sano hore ayaa imkan inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo ah war doorashaha inoo qabteen waxa qurahay inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa horta maya horta mid baa yaab leh dadku waxay lahaayeen oo dadkooda rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan in doorasho dhacdo ee kursiga waxay tirayaan shacabka inta la igna xisbiga hala furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka ha cadaato wixii shaqeeyay taasi maanta way cadaatay inaan la isxamanayn oo aydan ku sii dhagalay ee diyaar u tihiin doorashooyinka shacabka u dhacay xisbiga hala furo ayaa ka marakacay haddii aan la yiraahdo dhawaan si dhaqsaa waxaan ku soo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran si doorashada loo soo dejin lahaa xisbiyada loo furi lahaa inta waxaan ku darayaa dad badan ayaa markay la yiraahdo xisbiga la furo in cabsi geliyo yiraahdaan harbuuq waa ka dhici waa la isku qabsan inta soo doorashada soo maray waynu u bisan lahay inaan xisbiga furano oo kii laga tira batanka kala wahaneeyo oo kii la doortaka kala wahaneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanayaa inaynu sinab geliyo hawsha u galno oo aynaan ku doqonino cabsida laynagu akhriyo aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadda soo ceshano arrimaha dibadda intii xukuumadda jirtay dadaal badan waxaan u geysanay in arrinteena qadiyadda Soomaaliland xooggeeda la saaro ururka midowga Afrika waayo
soddonkaa sano meel kasta oo aynu tagno iyo riboor kasta iyo madaxweynayaashii hore dadaalkay sameeyeen iyo golayaashii ka horreeyayba ilaa golihii ugu horreeyay cabdiraxmaan tuur sheekh ibraahim sheekh cali maanta lahaa kombiyuutarka ingiriis Soomaaliland ilaa maanta hal erey baynu hortaagan oo ah arrintaasi Afrika u taalla Afrika waxa ka tagaa geeska Afrika u taalla idinka ka dhaxaysa bilowta wax soo dhah warnagu waanu saysanaa in kala saar waayahay Afrika gasho aan ugu horreeyay mar haddii halkaa kusoo ururtay 30 sannadood waxay noqotay inaanu Afrika xoogga saaro ilaahay mahadii dadaal badan baynu ka galnay waxaan ku bushaareeyaa in maanta Afrika badankeedu u dhagan nagu shahay in qadiyada Soomaaliland la keeno golaha Afrika Soomaaliya Soomaaliland arintooda la galo hadaba waxa kala haynoo dambeeyo guulaha kale iyo halka la gaaray Sooma bilaawday halka ay wadonayso waxaan ka bixinayaa arrintaa warkeeda maanta aad loo hadalhayo laba mid waa wixii wiiga gandhacay ilaa bish 9keedii midna waxaan dul maray 1960kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inaan xusuusino da'yar sano u sheegno 9kii bishan February waxaan u ambaxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeedo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysa halkaa waqti uu hogaaminayo wasiirka khaarijiguna joogay iyo aqoon-yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood iska xil saaray arrinta Somaliland oo ka mid ah Maxamed Biixi Yunis oo ka mid ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga Cirro oo meesha uu dhammaantaanu ka mid ah qadiyada in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahdaa inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan nugul madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiistiin maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegi lahayd maxaa soo bixi lahayd socdaalkan waxaa 9kii waxa maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan oo la kala baxay inaan maanta mar soo noqdo 9kii markii aan tagay ee ololaha iyaga aanu galnay ilaa nin waxa doonayaan nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeennimadii inaanu soo baxno 10kii ahayd 10kii maalintii dambe fiidkii anuu 12 soo baxay siyaasidan soo baxay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12 oo prime ministerka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacada aan imaaday runtii ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu xukuumadda dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize عارف كسي وأنا أدوك أنتي سبضان يدك لا يلاحظوا وحبي فاقدان أمر سيرشلسكا يعيدوا وحقر صورمي أي آد وتاجران والله أركينه يهاي إنك سمين هي إسبدل جيس كأفريقيا أردن إسبدل كأسوأ نبض إسلحقال سكاشي يهرمك وطوا أيضا وغيرها أيام فرحمك ووعي إنه كان سكاي سيو هلا البنا كتجي أنا آد أرداي يعني حفيز كسكتك كوي توك سلام يكف كبعدي لبي روس سلامة وحي شيء إن مدحونه Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhaxal soo jiro hadda soo galayo halka markiiba isna waa yimid saddexdeedu halka waxaan ku galay shir aanan kulay anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin أنا ما كان كوهين وصاف فضوش كاسور عايو واسكناتي رئيس وزراء إثيوبيا هدي وصانو احترامي أو إسقو أو أفريقيا من كيو بتشرتو أو شركة كتيرة أرنتاس قضية الصومالي لان هي صوماليا إنه صعدنا يو واقع محضقين هل كان الله بق وحن مدير بالشغلي وحين بلغوا هذا وقها برايم مستر أبي وحيري وحن دوريا والديار وهم سو ديار قولون سو حركة حدي inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arin Afrika u taala waa arin geeska Afrika u taala marka arinta waa galaya Somaliland diyaanu nahay waan aqbalay inuu arinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia
halkaa wax ka badan maxamed cabdullaahina waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna laba gelin waqtigeedaba laba hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday intaa iyo salaan iyo waa yahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoobaynaa ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dawlada dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arinta inay dhex galaan Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oo ku diyaar baan oo nahay wada hadal kartaydu way noo duubantaa geed walba diyaar baan oo inaan kartaydu ku gallo anaga u baahan wax dhex gala labada dawladood waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo biir haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna isoo weydiiyay oo yiri arrintaas la yiraahdo maxaan ka yeelan karo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa soo gasho cid wal arday soo galaysa waan u baahanahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno warwar ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duubantay arrintaas intaas ku dhamaatay saas lagu soo kala baxay vision 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii Xasan Keediye lagu dilay ninkii sarkaalka ahaa Inacab raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ka xunnahay wixii ka dhacay ee dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raaligelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasay erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadda raaligelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka laga hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomayna waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka daliyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa imanaya waa laba aan isqaban raaligelin baa bixinaya oo waxa soo dambeeya qaranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaanu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raaligelinta maxay ku timid maxaa dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii Ingiriis 1960 bishii Juulaay kowdeedii Soomaaliland iyada oo dawladda oo lixda dawlad ahayd oo ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ee xorriyadda ka qaadatay mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la mudowday dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcada qurmaan ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii Juulaay xorriyaddeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ah uma itiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula midowday Soomaaliya iyo koonfurti shardigaasi wuxuu ahaa
in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday midnimadii la raadinayay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tegay waxaanay ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Djibouti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiirada isugu yeeray rag nool caawa oo Hargeysa qaarkood joogaan markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa danteenu ka raacaynaa taasina waa dhaabad mirtada markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61kii dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland markaa yaa la soo diiday waxa u diideen ma jira ilaa maanta mana dhamaystira ahad lagu midoobay oo labada dawladood saxdana heshiis ahaa oo dhamaystiran oo xeer caalami ah noqon kara ma jirin 30 sanadood midaysan markhaatigeeda aan sheegay inqilaabkii 10 December ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ciidamadaha ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis ahdi jirin oo ka dhaxay labada markii la xiray ragii inqilaabka wada Xasan Kayd yaraha Allah naxariisto maxkamad baa la geeyay xamar ku taala 2 sanadood maxkamadda socotay markii maxkamadii gunaanadkeedii la soo gaaray waxa judge ka ahaa nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka heli kartaan Google-ka cid walba inay ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro ahad midaysan oo laba dawladood galeen marka waxay daacad yihiin oo haddii ay ciidan xisaabtamaysa dawladii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha nimka jooga cad oo qaadi kara sidaasana ku soo bixin waa markhaati cad inaanay marna dhamaystirmin midnimadii Allah maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ereyga aan maqasheen aadan yawaalays iyo walaweyn oo atu magaalo yar markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhawr 200,000 dalka ma joogo waa marka ay soo baxday maxaa inta ku xiga dhacay markii dawladii la dhisayay dawladii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir saddexda Soomaaliland dhisay xaruntiina xawr bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo saddexdii taliya ciidan intaasna koofur baqaa ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay 6 degmo Boorame Hargeysa Berbera Burco Laascaanood iyo Ceergaabo 6 degmo districts bay ahayd koonfurtu waxay ahayd 6 degmo Majeerteria Hiiraan Mudug Jubbada Sare Jubbada Hoose maxaa dhacay koob iyo 60 maxaa la sameeyay waxa la soo saaray gobolada dalku ka koobnaanaya midaysan ee Soomaaliland 6 degmo ee Somaliland waxa laga dhigay 2 gobol oo qura gobolada bari oo Burco xarun tahay iyo gobolada galbeed oo Hargeysa xarun tahay 6 degmo ee koonfurta 6 gobol baa laga dhigay ka soo gudub dagaalkii 77 iyo kii 64kii labadaba boqolkiiba 70 miisaankiisu wuxuu ku dhacay Somaliland magaalada Burburiyo baraka
qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn owla tafaasiisheeda halka gelimayno khasaaraha iyo culayska dalkaasi lahaa mid umaan uga socda gobollada waqooyiga waxaa la keenay qaxooti tiradiisu gaaraysa 400 oo kun waxaa 11 xero looga dhisay Somaliland jalaqsiyo kaliya ayaa xero looga dhisay koonfurta inta ay mideysnaayeen labada dal wixii dhaqaale horumarina ama mashaariica ee caalamka ugu deeqay bariga galbeed wixii lagu gulaayay Ruushka Mareykan iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba 7 kaliya ayaa ka soo gaaray Somaliland oo ahaa wadada ka soo burca soo gaadha ilaa iyo socotay Hargeysa galbeedka u baxda ku ekeed kala bayrka iyo warshadii sibirka ragina waa joogtay ka mid baahayna lagu dar hadii wax kala hayo halka markay marayso 1961 6 Abriil waxa lagu dhawaaqay asal si loo raadceeyo xorriyadii Somaliland ee luntay 60 dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1988 dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabkii iyo magaalooyinkii Somaliland boqolkiiba 9 magaalooyinka qaar ayaa la baadiyay magaalooyinka waaweyn oo dhow waa la burburiyay buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiye ay qoreen qolada maatay xuquuqda aadinu ayaa sidii u hayay muddo 2 wiiga waxa lagu dilay 50 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Burco iyadoo magaalada ka weyntahay la eegay diyaarada magaalo walba ay burburinayay haddana meelaha dadku badan waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidamo luga waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxay gobolada jaarka ah iyadoo xiriyo waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo madaafiiciyada ku laayeen in ka badan ilaalkeeda ayaa sirc iyo darxumo u dhimatay umulle daale waayeen waxa la baadiyay boqolaal sano wixii ay tacanayeen Somaliland ee adduunyaha ee aqoonaha ee buugaha waxba laga bixin waa la cirib tiray taariikhda Somaliland si ula kasa loo baadiyay hay-adda jimciyadda qolada ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Somaliland UNCO oo kooda heerkan Google 2001 waxay ka marag fureen xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay Somaliland dawayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Somali Democratic Republic ay ku samaysay inuu ahaa xasuuq bini aadmi waa maragmadoon waana ka marag furaya farmaajo adeerka marawlay waxa la xaqiijiyay oo imika la hayaa sahankooda 43 xabaala wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la dhaxlo inta dadkii lagu riday goof lagu uriyay iyaga oo nool iska rogooyin lagu dulguray qaar baa iyaga oo nool gabri lagu gubay waxaa soo dhan ka soo suqo iyadoo waxaa soo dhameeyeen 18 May Somaliland burcay isugu timid markay aragtay Somaliland wax garadkeedu ugu dhamaa markay aragtay inaanu jirin axad mideeyo Soomaaliya Somaliland
oo dhammaystiran oo caalami oo sharci qabanaya ah markay aragtay sida dowladdii Soomaaliya ee la yiri hala doorashadii Soomaaliyeed loogu hungoobay in Soomaaliya heleen walba u tashaday markay Soomaaliland aragtay in dowladdii Somali Democratic Republic ay si toos ah uga noqotay ballantii ahayd Soomaaliland hala doono markay aragtay Somaliland ay garoosatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda shabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 Juun 1960 oo noqdo gaar u taagan waa rabitaanka shacbiga waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga Soomaaliland yiri shuruud aan lagu geeyay xamar لا يا جراد وادت كيلها مثل ما لا دون يا وحبا قلت سوى سؤال لا سدوريها ما أنت وحي لي ما وانو أبني كل غنمي أنت صدق كاس نظير وكلام مقرين أنت أجرتي Somaliland وحتى كدرا وحراد عي صدق كاس الدولة دي الصومالية يستقدم به تمام تلقى ترتاح دجال كاي هرا كأذى وعالم كأوطن أيه أوجله إن هاي Somaliland هرجلي إن هاي عرقبتيا إن هاي أدون كنا كوتشر سدا وأدمود Somaliland إن هاي أهاي قراء أي أدون سدان أو قال جارة كحدة أي أدون كنا لمرة أو أنا Somaliland يرين markaan soo gaabiyo dawladdan ugu dambaysa markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdilaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladdan soo martay inkastoo maanta raali gelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan bayray waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Somaliland saadin ugu gobol dhowr qodob ka soo qaaday waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Somaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku waxsiyada in aanay cid bal la baacsan karin in aanay cid waxsin karin waxa wada ogsootay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa waxa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Somaliland ee dawladdu ka siirayay special arrangement Somaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray yiri lama sii karaan ka dawladda bal hadda dhugo ma la wixii soo dhacay iyo halku wax marinayo waxa kamid ah horjoogsiga heshiiska ay wada galeen Xasan Sheekh oo isaga horeeyay iyo Silaayo ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan walahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon warbeed qaadan sida loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anaga aan ictiraafay cid kale lama hadli karo oo ilaa maanta xalibay waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladdii Soomaaliyeed ee dhaxaysay inay ku go'aansan dhamaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Somaliland taa way diiday cad qureed ma siisatay xorriyadeeda waxa kamid ah inay dagaal la gasho oo xilka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Somaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxay noogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Somaliland iyo shacabka Soomaaliyeed karaamay iyo maamus muujisay waxaan ku soo koobayaa waxa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beej laga qori karo
oo dokumentigooda iyo waaqicigooda hay ee aan ahayn laab la kaciyo caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodob oo kaliya balanka mid saxda yahay kale Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Somaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Somaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa shaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socda ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland ee qiraan inaynu nahay laba dal oo midoobay iyaga oo isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka iyo ahadigi Soomaaliland gaadhay burco dastuurkeenu uu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana uu ku qasbay aanu kala xaleehan karin waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waa xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri halgelin baan laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sidee ku imanaya la isku diinay sidee ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiya galeen ayaa dadku waxa u geysay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaarinaya soo ma waan imanaya macluus soo wada soo inta ma aha oo taameen aqbalayna maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabad qaad raali gelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqli ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno erey laga yeeyo oo ku siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad inaan u baahnayn oo birawa markaan soo koobo hadal haynta leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanaya buu yiri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo gargar maaye aan ku cabiree gabayga Faarax kala gooyin baa arinta ka jawaabaya Faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo boorana fi laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigan maariga mid laga qarshaa laygu qali doono qoontiiba laba baananine qarayara nabadu waryaara kala quusanaya qomamalaada wasalaam Cabdiraxiim Ismaaciil shabakada Wararka News magaalada Hargeysa.